النبي عليه الصلاة والسلام قلت المامية من أصبح منكم آمنا في سربي معافا في جسدي عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها قفكي كسر دحتوسا مكوا بريسته في سربي أي في مجتمعي في أهلي في قومي ددكي سقفكي كوا بريسته سقو نبض قبا عافمات قبا وحو عنا هيستا كادون كورنا بقصاو يعني قفكني وحو هلي ألمني نفسي ولمني العقدي ولمني السحي ولمني الغذائي يعني وحو أباهنا نولشا أباهنا يدبوهيا وحانا يسوافقسان برشادو ويمي وبرشادو كتر سنيهي وحي آمن سنتهي وحا من سنية با يسوافقسان haddii qofku uu yimaado meel aanu dhaqanka afka kaljarka diinta la wadaagin waxaa adkaata siduu isu adjust gareeyo waxaa adkaata wixiisiina siduu u haysto waxna u kororsado waxaa fududaata inuu milmo dawabaan uu ku dhaco oo dadka ka mid noqda fudud marka ay dhacdo markaa in bulshadu waxay rumaysan tahay iyo waxa dhaqan u ah iyo nidaamkeedu iyo adigu wixii aad rumaysnayd ama diin u haysatay ama dhaqan ku ahaa iska hor yimaadaan waa markuu qofku dareemo al-ghurba waa markuu strangenimada dareemo inuu stranger yahay waa markuu dareemo challenge inuu ka soo horjeedo waayo bulsho kastoo meel ku dhaqan waxa la yaqaanaa waxay ilaalisaa identity-ga ay bulshadu leedahay waxaana ku ilaalisaa can طariiq الcilmi واlإعlaam والqanuun wasaaradda waxbarashadu waxay ilaalisaa bulshadan inay isku darto oo ay siiso identity-gii bulshadu lahaa qofkan ku soo biiray inay siiso iclaamkuna waa sidoo kale miidiyu waxa uu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo iyo waa dhaqan iyo culture iyo hidde iyo af ay dadkani leeyihiin iyo taariikhdoodii intaa waxaa dheer haddii ay intaasi ku anfici weydo systemkaad ku qasbanto nidaamka guud alqaanuun system baa ku qasbaya inaad systemka raacdo su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay meeshaa kaa gadisan sidee baad diin ugu dhexaysan kartaa marka aad meel kula nooca joogtid majhuudka ama effortka iyo koskay kugu qaadanaysa inaad waxaaga haysataa waa wax fudud waayo bulshadaad la nooshoo dhan baa dhan u wada socotaa saa daraaddeed afkaa lumi maayo dhaqankaa lumi maayo diinkaa lumi maayo waxoogaa un adigu is-ilaaliso midhmidhka qaldan wixiisa inaad ka tagto ayuunbaad u baahan tahay laakiin systemka guud wixii aad rumaysnayd buu wadaa marka inaad diintaada ilaashato ilmahaaga ilaashatid dhaqankaaga ilaashatid awoodda aad ku bixinaysa iyo hantida aad ku bixinaysaa waa wax yar markaadse timaadid meel aad intiiba kaga gedisan tahay waxay u baahan tahay wakhti ka badan iyo hanti ka badan iyo effort ka badan iyo caqli ka badan aad ku adeegsato si aad waxaagii hore u ilaashato u suurtoobi karto inaad waxna kororsato sideedabana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka dhulka ku nool intooda badan haddaad aqbasho yudiluuka can sabiili illah baa ilaahay tilmaamaya jidkay kaa luminaya haddaba qofka halkan yimi waxaa la yidhaahdaa laba option ama laba doorasho qura laba khiyaaro keliyuu haystaa khiyaar waa inuu u diyaar garoobo sidii uu diintiisana u xejisan lahaa iyo wixiisa waxna u kororsan lahaa hadduu arkayo taasi inaanay suurtagal ahayn khiyaar labaad ma jiro ee waa inuu meeluu wixiisa ku haysan kara tagaa halkeeba inaad tirahda halkaa dhib baa ka jirtee dunida gebigeeduba waa challenge intaad nooshahay
والابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دنيا واحد وشوكتان لو يتحاموا، لكن هذا كوكو حرنتي مركا امتحان كان نوع تشالنج قرينيسو تشالنج كات ربطين قادته كان واد قادن كرتا تشالنج كات شوغا هداد كبيحي كرتو هدي أنت كان أودي كرين وين قادتا تشالنج كذا والبكا سو عرفتي ونبض إيو dhaqaaliya cunno ku saabsiisnaa kaas sidii aad u manage garayn lahayd waa inaad waajahda, laakiin meel ka dhaxaysa ma jirto labadaa. wixii ka dhaxeeya waa dhimasho. maxaa loo baahan yahay markaa inaynu haysanno teeni? ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa qisas tiro badan oo ku saabsan bulshooyin dunidan soo maray iyo siday u noolaayeen. bulshooyinkaa ilaahay ka warramaya qur-aanka qisaskooda ku soo naqliyey qaar gaala ah iyo qaar muslimaba way lahaayeen. ummadaha ugu tirada badan leh qur-aanku uu ka warramo waxaa ka mid a dadka yahuudda la yidhaahdo. yahuudi waa bulsho taariikh dheer leh, waa dad xun iyo dad wanaagsanba lahaa. dad wanaagsan oo badan bay lahaayeen saa qur-aanku ka warramayo, bale ambiye badan bay lahaayeen. nebi yacquub, nebi yuusuf, nebi sulaymaan, nebi huud, nebi muuse. ambiyadaa qur-aanka warramaya oo dhammi waa faamiliga ah oo bulshadaasi ka tirsanaya. dad wanaagsan way lahaayeen. a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun wajacalnaa minhum a'imma. ilaahay wuxuu leeyahy iyaga waxaanu ka yeelay a'immo aayaadkayaga a'immo sabray oo aayaadkayaga yaqiinsaday oo dadka qudwa u noqday tusaale. dhanka kalena kuwa xun bay lahaayeen. ilaahay markaa qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa bulshada reer banu israa'iil ay idhaahdo qayb mar ka mida taariikhdooda. ilahay wuxuu uhi waqatacnaahum fi lardi umama, waanu googoyno dhulkaanu ku saydhinay baa ilahay yidhi. qatacnaahum fi lardi umaman minhum الصaalixuun ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. dad wanaagsanna way lahaayeen baa ilaahay yidhi, dad xunna way lahaayeen, waana la googooyey. waa itixaamay baa ilaahay leeyo xasanaad iyo sayi'aadba, wanaag iyo xumooy samaba waa lagu itixaamay. lacallahum yarjicuun. maxaa xaalkoodii noqday markaa? waxaa qisaskaa laynoogaga warramayaa inaynan qaar ka midi ficladay sameeyeen inaynan samaynin. ilaahay wuxuu leeyahy markaa fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaab. kuwaa waxaa gadaal maray koox kitaabka dhaxashay baa ilaahay yidhi. warithuu alkitaaba, kitaabka way dhaxleen. ya'khuduuna carada hada aladna, waxay qaadanayaan baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala noloshan gaaban wixii ka soo gaadho waa iska qaadanaya, xalaal iyo xaaraan iyagoo aan u eegin. wawa yaquuluuna waxay odhanayaan sayukfaru lana, waa naloo dembi dhaafi doonaa. wain yaatihim caradun milu, mar labaad haddii kii oo kale ku soo baxana ya'khuduuh baa ilahay yidhi waa qaadanaya. ilahay qoladan wuxuu ku tilmaamaya dhowr sifo. kow, kitaabka way dhaxleen. bini aadamku wuxuu dhididkiisa iyo xooggiisa ku baxsado iyo wuxuu ku helaa agtiisa way ku kala fudud yihiin. bini aadamku haddii uu maalan ilmaha yar haddii xoolo looga dhinto, inta badan waxaa dhacda inay maxay ku cayaaraan, waayo umay dhididin iyagu. laakiin qofku xoolaha uu shaqaystee ku dhidida ee xoog iyo naftiisa ku bixiyo wuu la jeclaabayo way adagtahay inay ka baxdo. noloshoo dhan baa sidaasiya. diinta dadka u dhintay ee naf iyo maalba soo siistay ee waxay u hijrooday saxaabadii nebiga iyo dadkani waa noloshooda dhan bay siisteen, saa awgeed way ku adkaayeen. laakiin dadka dhaxalka u helay sidiinoo kale meelun baynu iskaga dhalannay, dad muslimiini joogaan, islaamkun baynu aabbayaasha iyo awowyadeen allah u naxariistee ka dhaxallay. wax kasta oo inagu joogay ma jirin, adnaa majhuud maynan gelinin.